tahay marka koowaad waxaan ku weydiin lahaa Dr. Cusmaan cudurka la yiraahdo baabasiir waxa uu yahay baabasiir ama qormaali sida ay dadku hadba ay u yaqaanaan waa xanuun badanaa aan lahayn da oo la dhihi karo qofka age-kaas markuu gaaro ku dhacaa ama maxaan ku raahdaa aan lahayn limit oo qofka inta hadduu gaaro kuma dhici karo aan la dhihi karin badanana baabasiirku waxaad moodaa bulshadeena Soomaaliyeed inay aysan si fiican u fahansanayn oo ay u arkaan wixii ama nabar ama xanuun ay danka saxarada ka dareemaan ay ugu magac daraan ay u dhahaan waa xanuunkaas baabasiir ama qormaaley laakiin sidaas ma caqabada kala jira oo isla bulshadeena aysan xanuunkan aysan fahansanayn waxaa kamid ah inay qarsadaan oo ay ceeb u arkaan inay intay dhakhtar tagaan ay dhahaan xanuunkaasaan qabnaa ama meeshaas iyada abaana laga hayaa waa cudur inta badan lala xishoodo la qarsado noqday aad iyo aad maxaa is dhihi karnaa cudurkaas inta badan uu ka bilowdaa ama uu ka dhashaa waxay xanuunkani wuxuu ka dhashaa horta waxyaalo fara badan laakiin waxaan dhihi karnaa dadkeenu waxay ka qaadaan waxaa sababa horta caloosha fariisata qofka in calooshiisu ay socon weydo baa keenta waxyaalo badan baa keena oo maxaan ku raahdaa fara badan laakiin badana bulshadeena waxa ay ka qaadaan taas ay kamid tahay cuntada aan caloosha fariisatay isticmaalaan caloosha aysan socodsiinin iyo waxyaalo la halmaala laakiin way badan yihiin waxyaalaha laga qaado halkana kagama hadlayno waayo wixii markaas anaga naquseeya oo bulshadeena ay ka qaadaan baan ka sheegay ka hadlayna maadaama uu cudurka sida aad sheegtay uu la halmaado caloosh oo fadhiisata dabcan caloosha socitaankeeda socitaankeeda ama seenoo sida ay caloosha ay dadka waxay u kala isticmaalaan qaabo badan dad waxay calooshooda ku socodsiiyaan caana ay cabaan dad waxay ku socodsiiyaan xulbada ay cabaan waxyaalahaas oo kale isagu ma la halmaalaa oo ma la dhihi karaa uu isagana waxbuu ka yahay qayb buu ka yahay kuwaas caloosha lagu socodsiinayo iyagana sida hadda xulbada oo kaleeta iyo horta ereygan baabasiir ama afka qalaad lagu yiraahdo ama hadiska lagu yaqaan loo yiraahdo waa wax noolaa oo qofka ku dhex jira ma aha xanuun qofka ku dhaca laakiin wuu kacaa oo waxa waaye qofku ku kaca dadku way wada qabaan laakiin dadna waa dad uu la nool yahay dadna waa dad uu ku kacsan yahay oo uu markaas cilad u keeno oo xanuun ku noqdo dhaqaatiir ahaan waxaan u kala qaadnaa heerarkiisa labo marka dambena afar waxaa loo external iyo internal oo kala gudaha mid ku jira iyo mid banaanka ah marka isagii baa heerar kala leh afar heer buu soo maraa markii sidaan hore kugu sheegay waa noole qofka ku dhex jira oo circle-ka meesha saxarada buu ku yaalaa oo wax sida carabka ahaan u samaysan ilaahayna ugu talagalay in ay markay wax yimaadaan oo meeshaas xiro markii aysan waxna joogin oo control meeshaas control ah marka xanuunka waxa qofka uu ku keena markii uu qaato ay calooshu fadhido aysan saxara ka imaanin cadaadis uu la kulmay cadaadis markuu la kulmo wuxuu isku dayaa inuu xakameeyo xakameyntaas oo marka ku kalifto marka dambe inuu isagu qarxo ama uu garanaysaa uu kala xirmo oo uu dhiig kala xiro kadibna uu sidaas ku weynaado marka afarta nooc aan u kala qaadayno labo internalka lagu gartaa oo waa marka gudaha oo banaanka ma yimaado qof oo inta gudaha ku jiro oo wuxuu dareemaa qofku sida inuu cuncun oo kala u dareemo waana marka labada heer u horeysa wuu yar yahay banaankana ma aha laakiin isagoo gudaha ku jira buu sii kala weynaadaa oo hadba in gaara talaabo kasta oo sii qaadana calaamad gooni la yimaada marka horeeto inuu qofkii oo cuncun ku keeno
marka dambeeto inuu ku keeno qofkii maxaan ku raadaytaa tabar yari uu ku keeno very weak qofkii tabarti u yareeyo aad u yareeyo haddana heerka saddexaad buu usoo gudbaa oo inuu banaanka usoo baxo oo marka badanaa dadku ay arkaan wuxuu kusii darsanayaa qofkii markaa uu banaanka yimaado madax xanuun inuu qofkii madaxa iska xanuuno caajis fara badan appetite-ko qofkii ka xirma heerkiisa ugu dambeeya waa markuu banaanka uu wada yimaado in ilaa dhowr senti ah uu banaanka usoo wada baxo markaas oo markaa haddii aan qofku sida ugu dhaqsiyaha badan uusan dhakhtar u tegin waxyaalo badan baa ku dhici kara in xididkaasi qarxa dhici kara oo meeshaas oo dhiig bax au ku dhaco cusmaan waxaad hadda ka dhawaajisay cudurkaas uu yahay cudur qof walbaan baa ku jira laakiin dadka marka ay daraamaan uu yahay maruu ku kacay cudurkaas iyo midka la yidhaahdo gooryaanka maxaa la halmaala waa su-aal muhiima waa su-aal muhiima waxaan horey kugu sheegay xanuun kasta oo meeshaas ku dhaca ama qofka uu ka wax ka dareemo badanaa waxaa loo saarayaa maxaan ku rahdaa baabasiir laakiin sidaas ma aha waxaa jira xanuuno badan oo eg oo isla carabka agtiisa seekolka wareega agtiisa ku dhaca baa jira xanuun fistral lahaa jira oo isla meeshaas meel u dhow kasoo baxaa calaamadaha badanaa way iska shabahaan laakiin xididkaas baa waxaa gala malax baa gasha isla waxaa keena isku sibuu ku yimaada isna cadaadiskaa keena laakiin malaxdaas markay gasho waxay samaysataa duleel bay samaysataa ee qofka ay ku faafto marka qofku wuu iskaga noolaadaa wuu iskala noolaadaa way qaraxda dhacaan baa ka yimaada xanuun wuu fiicnaadaa cabaar markuu joogo bay timaadaa aad bayna iskugu dhow yihiin xanuuno kaloo ay isku dhow yihiin oo isla sidaasaa jira marka qofka aan professionalka ku ahayn ama aan aqoonta fiican u lahayn aan u lahayn wuu isku khaldaa sababto aad bay iskugu dhow yihiin laakiin waxaa jira qalab loogu talagalay bawlasiirka in lagu eego oo lagu baaro oo sida waxaa jira qalab la yidhaahdo endoscope ayaa jira oo ilaa 10 centimeter meelahaas ah oo loogu talagalay in lagu ogaado marka way waxyaalo badan oo eg baa jira dadka ay ku qaldaan laakiin uu ka duwan yahay haddaan usoo laabto su-aashaadi gooryaanka way kala duwan yihiin aad bay u kala duwan yihiin waayo gooryaanku waa wax marka hore caloosha ku dhasha markuu caloosha ku dhashana kadib wuxuu soo raacaa saxarada marka noolihii caloosha ku dhashay markii uu soo gudbo laakiinse uusan banaanka toos u wada iman wuxuu sameeyaa dhaqdhaqaaq buu ku sameeyaa isla meesha aan kuu sheegay saxarada soo marto dhaqdhaqaaq buu ku sameeyaa laakiin wax saa usii weyn maaha waxaa laga yaabaa markaas marka ku xigto qofku uu musqusho tago inuu gooryaanka isaga ka soo baxo ama meesha uu ku dhinto laakiin xanuunkiisu wuxuu joogaa caloosha marka midna waa gudaha shishay midna waa isna waa banaanka si fiican dhaqaatiirta yaa midka aanu professionalka u ama aqoonta buuxda aan u lahayn yaa inta badan su qaldi kara laakiin qofka uu hayo ma u garan karaa waxa hayo inuu yahay baabasiir qofka isla markaas runtii aad bay u adag tahay siduu ku gartaa qofkaasi inuu xanuunka haysaas yahay saan kuu sheegayba waxaa lagu khaldaa xanuuno badan waxaa laga yaabaa qofkii isagoonan uusan qabin xanuunkaas isaga ah ee baabasiirka in haddii uu calaamado noocaasa ama meeshaas iyada ahba uu wax ku arko uu is yiraahdo waxaad qabtaa xanuunkaas laakiin waxaa wanaagsan qofku sidiisaba hadiiba uu xaalad caafimaad ay kusoo kororto inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u tago dhakhtarka u dhow si uu markaas u ogaado ama daaweeye waxaas uga helo marka qofkii xanuunkaas baabahaya isaga yuusan garanin ba hadduu rabe qofkaas maxaan dhihi karaa u daawada dhowr siyaabad baa loola tacaalaa sida aan horey kugu soo sheegayba dhowr heer buu soo maraa marka heer kasta uu soo maraba wuxuu leeyahay tallaabo lagu qaado loo qaado oo lagu daweeyo marka xilliyada horeeto oo gudaha uu ku jiro wuxuu leeyahay daawooyin la qaato markii uu banaanka yimaado laftirkeeda uusan laakiin saaid u imaanin oo ilaa heerka saddexaad oo kaleeto ugu yimi laakiin saaid uma uusan soo wada bixin oo ilaa heerka saddexaad oo kaleeto
iyadana daawa jirta loogu talagalay, laakiin ugu dambeynta haddii uu heerkiisa afaraad gaaro waa laga qalliin baa lagu sameeyaa ilaa heerka ugu dambeysay afaraad uu gaaro. laakiin saddexda heer oo kaleetoba daawooyin baa lagula tacaalaa. qofkaas waa markuu ku weynaado, markuu heerka afraad imaado waa markuu ku weynaaday. marka qofkaas sabab muxuu sababi karaa markaas inuu qofkaas marka usii gudbiyo xanuunkaas, maadaama xanuunkii waqtigii la rabay in la iska daaweeyo uu soo tallaabay oo ilaa heer qalitaana uu imaaday. maxaa kaloo sababi kara inuu cudurkaas soo hoosgala maadaama uu qaatay? waxaa jira waa runtahay horta xanuuno iskeena baa jira iyo xanuuno korkaaga markii tamartu ka dhamaata oo daciif ka noqdo waxaa kuu sahlanaana in xanuun kasta ku dhaco. marka wuxuu isagu ka mid yahay xanuunada qofka bini'aadanka jirkiisa daciifka ka dhiga oo markaas u sahlanaato in uu xanuun kasta uu ku dhici karo. weliba xanuun kasta hargab oo kale haddii qofkaas uu ku dhaco waxaa laga yaabaa inuu sariir u fuulo u tabcaano because difaaca jirkiisa aada u yar. saan kugu sheegay horey kugu soo sheegay wuxuu leeyahay wadna qaraa, daal fara badan, tabartii qofkii ka dhamaata, waxyaalo badan, abteedka qofkii cuntadii usan qaadanin qofkii, waxyaalo badan. marka haddaadan cuntona aadan qaadanin tabarna aadan lahayn waad u sahlan tahay in xanuun kasta kugu dhaco inuu xanuun kasta markaas uu soo hoosgalo. ugu dambeyntii Dr. Cusmaan, maxaa talaha oo siin lahayd maadaama oo sida aad horey noogu soo sheegtay uu yahay cudur inta badan dadku ay qarsadaan, loo maleeyo inuu ceeb yahay, haddana cudurka hadduu sii dheeraado oo maaragtay ilaa heer qalitaan uu gaarayo, qofka marka maxaa talaha dad oo siin lahayd daawadayaasha? intaanan talada siinin wax yar baan ku hormarin lahaa. xanuunkan horta waxaan ceeb u naqaanaa anagu inaan dhakhtar u tagno markii xanuunada la xiriira hoos ay nagu dhacaan. waxaadna moodaa inay dhaqanba u noqotay Soomaalida. bulshada kale aad baan uga duwanahay taas. siba waxaad moodaa haddana qofkii marka uu dhalinyar yahay wuxuu u sii arkayaa ceeb, wuxuu leeyahay intaas da'daas jira maxaan ku raadayay taa inaad saas aad noqotay, laakiin san hore idinku sheegay waa ma aha maxaan ku radaa kuma ku xirna. marka tala ahaan waxaan siin lahaa qofku ma garan karo xanuunka inuu isaga yahay iyo in kale, laakiin haddiiba aad aragtid in arrimo noocaasa waxa aan soo sheegnay kamida aad aragtid inaad dhakhtar la xiriirtid. midda kaleeto waxaa aada u muhiima inuu mar walba qofku caafimaadkiisa la socdo, calooshiisana socodsiiyo. waxyaalaha qofka caloosha dadku isku mid maaha, qof walba waxbaa calooshiisa jilaya. marka badanaa in qofku uu ku dadaalo inay calooshiisu jilicsanaato ay socoto, biyahana la badsado. biyaha cabitooda aada loo badsado, waayo waxay kaa saacidaysaa inuu dhiigaagu si fiican u shaqeeyo, in caloosha laftirkooda oo kaleeto maalintii haddii qofka xataa uu 5 liter uu cabi karo it's okay. Cusmaanow, waxaan cudurkan intaan hadda mar aan baaritaankiisa ku jiray, markii qaybta caafimaadka ee dhakhaatiirta laga soo tago ma waxaa jira waxyaalo kale oo la iskaga daweeyo oo dhaqan Soomaaliyeed ah? waxaa jira dhaqamo dhaqan Soomaalidu ay leedahay oo caafimaad ahaanba ma yenan dhihin xanuunkan bas, laakiin sidoo kaleeto xanuun kasta waxaan leenahay dawo dhareed u gooniya, laakiinse waxaan dadkay daawana u sheegi lahaa inuusan kan xanuunada kale la mid ahayn, aysan ku degdegin. waayo xanuunkan waa aada buu halis u yahay runtii markii laga hadlayo. raggana aada buu ugu daran yahay, 2 jeer buu weliba khatar ragga u leeyahay, oo markuu hayana khatar wuu u leeyahay, marka qalliinka ama meeshaas la sameynayna khatar buu u leeyahay. marka dhakhtarka sameynaya qalliinkaasi waa inuu aada looguma degdego qalliinadaas oo kaleeto, aada baa looga fiirsadaa. marka isagoo ilaa heerkaas qalliinkiisu marayo haddaa dhaadi Kienji waan geynaya oo waan iska sanaynaya oo waan gubaya, marka wax kasta kugu dhici kara.
marka aad bay u adag tahay. marka kaleeto oo ku dhacayo isna halista kale ragga u leeyahayna waa daciifintaankaas aan kusii qofka uu daciif noqday ogxamihiisu la dagaalamaya isbaa maskiisa kulada oo week ka dhigaya qofkii ilaa oo finally gaaro inuu qofka ku sababa inuu qofkaasi uu mandaleysmo. waa tahay daawadayaal intaas ayaynu kusoo afeernaa barnaamijkeena arrimaha bulshada oo aynu maanta ku eegayna dhinaca caafimaadka martiigu Dr. Cusmaan Geedi oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud. barnaamijka waxaan la soo codsiinay anigu ah Gorod Maxamed Cali tan inta dib u kulmo doono barnaamijka mid lamid ah waxaan ku dhaafay siyaasi fi amaanillah.